عبد آدم وتلفزيونka caalamiga Home Cable TV waraysi kooban ku siisay xafiiska Demokrasiga ee magaalada Hargeysa ayaa waxay dabalka ka qaaday in dhamaanba gobolada bariga Somaliland loo kala diray imtixaankii iyo shaqaalihii ka hawlgali lahaa ilaalinta imtixaanka fasalada afraad iyo sideedaad Baruusamsi Cabdi Aadan oo ka hadlaysa ayaa waxay tiri way bishii 12 tahay waxa loo kala baxaya imtixaanada horta maanta waxa baxaya Sanaag iyo Soob oo iyagu meel fog tagaya waxaana imtixaanadii shahaadiga ah oo bishii 15keeda ku beegan ayaa loo baxaya waxa waa 154 goobood ayaa loo kala baxaya ilaa 800 oo shaqaale ah ayaa ka qayb qaadanaya ardayduna waa 19400 iyo kow arday dugsiga sare waa 7297 dugsiga dhaxana waa 12100 arday 22 arday ayaa galaya oo 20 ku dhow yihiin ardaydu marka nasiib wanaag waxa inagu soo kordhay oo sanadkan xudun buuqoodle oo aan markii hore sanadkii hore imtixaan uga soo bixin eedhid iyo secondary ayaa labadaasba imka ay ka soo baxayaan dabadna meel kasto Somaliland ilaa Sanaag bari ilaa Saylac sanadkii hore may dhahayn sanadkan bay leedahay intermediate saddexda goobood baa ugu fog meelaha meelaha la tagayo Eastern Sanaagna meelaha ku soo kordhay adu calaay xal xuduudda Somaliland iskuul ku jira oo aan imtixaanka laga galin ama eed haduu leeyahay ama secondary haduu leeyahay ma jirto taasaan maanta hawshada gobolada Sanaag Sool iyo Buuhoodle oo telefishinka caalamiga Home Cable TV kula kulmay xarunta xafiiska imtixaanaadka guud ee qaranka Soomaaliland xilli ay ka baxayeen goobtaasi gobolka Sanaag baan maanta qaadanay oo ay bishii tahay 12 ka qaadanay Hargeysa imtixaankaas oo bilaabi doona si uu wasiirku sheegay 15 bishii waxaan u qaadnay gobolka Sanaag 18 iskuul oo dugsiyada dhexe ah ayaan qaadnay waxaan qaadnay 7 iskuul oo secondary ah baan qaadnay maanta waxa halkan ka baxaya imtixaanadii gobolka Sool aadayay gobolka Sool marka la leeyahay macasaraar baa ku jirta waa ilaa Caynaba ilaa Laascaanood way u kala baxayaan goobahaasi halkaas oo ardaydu diyaar ugu yihiin inay maanta ka qayb galaan imtixaanadii halkaas oo ay nagu soo dhaweynayaan nuguna sugayaan diyaar ay ugu yihiin inay ku galaan imtixaankii waxa weeye waa 5 goobood 4 goobood waa primary-ga Woodwood Xaararan Dandan iyo Buuhoodle gudihiisa wasiirka wasaaradda maaliyadda Somaliland Cabdi Casiis Maxamed